gudoomiyaha degmada lixaad ee magaalada Minneapolis mudane Jamal Cusman ayaa hay'adaha dowladda gobolka Minnesota ku marti qaaday xaafadda ay Soomaalidu ay sida halkan waa howlka community-gu ama bulshadu ay isugu timaado isla markaasna lagu caawiyo hay'adahan dadku waxay ka caawinayaan baahiyaha kala duwan hadday ahaan lahayd dhinaca dowladda iyo hadday ahaan lahaydba dhinaca shirkadaha Jamal soo dhawow maanta waxaa kan isugu keenteen hay'ado badan oo xafiiskaagu soo qaban qaabiyey marka bal dareenkaaga iyo sida aad bulshada ugu talagasheen bal waxay faahfaahin naga siisaa hawlaha waa mahadsan tahay marka hore magaalada Minneapolis xafiiskayga aad baa dadku ula soo xiriiraan baahi badan oo community ka jirta sida guryaha sida immigrationka sida mataqaanaa ilmahooda si caawis ugu heli lahaayeen barnaamijyo badan ayaa dadkana weydiiyeen su'aalo badan marka waxaan garanay inaan isku keenno dawladaha xafiiskooda dhan inaan keenno meeshaan oo xafiisyada waxaa ka mid ah xafiiskadii city Minneapolis xafiisyada mataqaanaa legal aid-ka iyo lawyerada freega ah xataa federal government-ga oo Klobuchar Senator Klobuchar iyo Tina Smith iyo Ilhan Umar ay noo yimaadeen dadkiina ay ka caawinayaan wixii immigration ku saabsan marka waxaan garanay inay muhiim tahay waa kulankii labaad sanadkii labaad oo aan dhigayno ummadda inta su'aalaha soo weydiisay waxaan garanay inaan u keenno service-kii iyo mataqaanaa baahidii u qabeen xaafadda gurigooda inaan ugu keenno kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaanada laga soo doorto gobolka Minnesota hadday ahaan lahayd Congress-ka iyo waliba hadday ahaan lahayd xildhibaanada gobolka Jamal Cusman ayaa markale waxa aan weydiiyey bal xildhibaanadan waxa ay dadka ka caawinayaan ayaga laftigooda maadaama ay yihiin dadkii ay u dirsadeen Washington iyo gobolka Minnesota intaba senatarada noo yimid waxay ka caawinayaan dadka immigration wixii ku saabsan haddii reerkooda lagu dhagan yahay haddii baasaboorka lagu adkeeyey waxyaalaha bay ka caawinayaan waxaa kaloo nala jooga xataa xafiisyo kale oo dowladaha ku saabsan sida mataqaanaa city of Minneapolis waxaa noo yimid shariifka xafiiskiisa waxaa noo yimid dhalinyarada caawisa ciyaalka maandooriyaha helay waxaa noo yimid dadka korontada dadka caawiya waxaa noo yimid park boardka oo programyo city Minneapolis ku leh sida meelaha mataqaanaa lagu dalxiiso iyo jardiimada iyo meelahaas oo dhan ay tagaan dadku marka xafiisyo badan baa yimid oo dadka muhiim mar walba u ah marka aad baan ugu faraxsanahay inaan nimid waxaan rajaynaynaa ummaddeeda inay maanta ka faa'iidaysatay haddana insha Allah wax ay baahi qabeenna ay halkaas la address gareeyay oo mataqaanaa la caawiyay kulankan ayaa waxaan weydiiyey kulankii koowaad oo soo qaban qaabiyay xafiiska gudoomiyaha degmada lixaad ee magaalada Minneapolis waxa uu ku jawaabay kulankan waa kulankii labaad waxaan dareennay kulankii hore oo aan qabanay aad inay dadku uga soo qayb galeen aanay u baahnaayeen service-kan annagoo badinay xafiisyadii dawladda ka imaanayay oo sanadkan meeshii ka weyn aan qabanay kulankii labaad waaye oo sanadkii labaad dhaca marka aad baan ugu faraxsanahay waxaanan maanta rajaynayaa inay ummaddu ka faa'iidaystay baahidoodiina mataqaanaa halkaas laga caawiyo dadka Soomaaliyeed ayaa waxay baahi weyn u qabaan dhinaca socdaalka ama migration-ka waxaana Jamal Cusman marka la weydiiyey waxa ay maanta hay'adahan ka caawin karaan dadka Soomaaliyeed ee bilaa sharciga isla markaasna ka caawinaya dhinaca migration saad u ogtahay dee annagu dalkan waa dal aan nimid immigration service iyo programmada dadka soo maraan badanaa su'aalaha xafiiskayna la weydiiyey waa immigration service-ka annaguna federaalka ma nihin laakiin xafiiska federaalka wax walba su'aalo qaba halkaas ay uga jawaabayaan wixii caawis ahna halkaas laga caawinaya ama ha noqoto processkooda la fududeeyo oo la dedejiyo ama ha noqoto mataqaanaa baasaboorka laga caawiyo ama ha noqoto emergency travel ay rabaan inay suubiyaan wax walbeeto waa looga jawaabayaa marka aad baa ugu mahadcelinaya xafiiska Ilhan xafiiska Klobuchar iyo xafiiska mataqaanaa Tina Smith senatarka ay noo yimaadeen iyo hay'adaha kale iyo xafiisyada kale dawladda ka yimid maanta xildhibaanada laga soo doorto gobolka Minnesota oo ay gobolka Minnesota u dirsada Washington DC ayaa waxay ka kooban yihiin 10 iyaga oo 8 kamid ah ay yihiin aqalka hoose ee gobolka Mareykanka waxaana weydiiyey inta xildhibaan oo maanta soo xaadirtay kulanka uu soo qaban qaabiyay xafiiska gudoomiyaha degmada lixaad ee magaalada Minneapolis Jamal walaal xafiiska marka hore city Minneapolis Ward 6 ayaa host gareeyay eventigan qaybo badan oo city ka mid ah xafiiska ka mid ah ayaan keenay laakiin waxaa noo yimid dhinaca federaalka labada senator iyo Ilhan Umar xafiiska state Congress-ka baa noo yimid oo dadka aad u arkaysid laga caawinayay marka intaasaan noo yimid waxaan rajaynaynaa mar walba sanad walba inaan ka sii badino dadka service-kooda aan guryahooda ugu keenno ummaddeena waxaan rabaa inay ka faa'iidaystaan markay baahidu qabato xafiiskayga soo wacaan laakiin annaga waxyaalo badan oo expert aan ku ahayn baa jira connectionkaasi xiriirkaas ayaan suubinay maanta waxaan jecelnahay dadka inay ka faa'iidaystaan insha Allah
xildhibaanada laga soo doorto dalka Mareykanka guud ahaan waxay ka kooban yihiin 435 xildhibaan oo ka mid ah Koongareeska Mareykanka halka 100 ka midna ay yihiin sanadka aqalka sare iyadoo gobolka Minnesota ugu dirsado 8 aqalka hoose oo ka kooban 435 halka aqalka sare oo ka kooban 100 ugu dirsado gobolka Minnesota 2 waxaana weydiiyay Jamaal Cismaan ayaa waxaa weydiiyay xiriirka ka dhaxeeya gobolka iyo waliba dawladda federaalka waxaanu ku jawaabay xiriir wanaagsan baa naga dhaxeeya because annagu local baan nahay local government waxyaalo badan oo waxaa jirta aanan shaqo ku lahayn sida immigration oo kaleeto laakiin marka naloo yimaado dadka baahidina soo weydiiyaan ma dirno ma dhahno ma qabano waxaas laakiin waxaan ku xirnaa xafiisyada dawladda kaleeto iyo mataqaanaa senatarada iyo Congress-ka xafiisyadooda maantana way noo yimaadeen dadkiina mataqaanaa way qaabileen qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyay dadaalka uu muujinayo gudoomiyaha degmada lixaad ee magaalada Minneapolis mudane Jamaal Cismaan إلهي بمهدل مهدك بعد وحن مهدل علينا جمال إن سيدا قيمها بدن دتكو إن واحد بدن أوجادان أما واحد بدن وعوامات وإدتكو بهايين سيدا يكون الهاين ما درقات يكون الهاين أما إن بدن لبلغ عاوي إن المنطق وبشوفه هذا كان كل مو أنا جو عثمان ظاهر جمال وحلا هي مرة بعد يوم صدحات بقادي بدو ما هتصنت يا الله كبركيه. You know, we're here at the second annual Community Resource Fair, and it's a really important thing for us to be able to bring resources directly to where community members live, so they don't always have to come to our offices for services. There's a variety of services here, from help with your electric bills to supports that the city provides directly to residents right here at the Brian Coyle Center. I can't express enough how important it is for us as elected leaders to be able to bring these residents, these services right to your front door as residents. And I hope that we continue to do this in partnership every year. Right, and I do want to thank Commissioner for coming down and really being part of the community. Absolutely. And as she said, this is a very important event, and we do it every year. So we were here last year, and we're here this year. So thanks everyone. adeega dadka Soomaaliyeed ay uga baahan yihiin dawladda iyo waliba gobolka ayaa ah mid aan la soo koobi karin iyadoo dadku ay ka faa'iideystaan markii loo dalbo ama loogu yeero xafiisyada dawladda. Laakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka.